waxaan faraynaa shacabka Soomaaliyeed inay ka foolajignaadaan waxyaabaha lagu sheegayo isku soo bax ee noocaas oo kala ay ujeedadu tahay qalqalgelinta caasimadan haddii qof dhintana adinka la idinaysa sabab aad leedihiin haddii qof muwaadin wax ku gaaraan gacan aaminay ku jirtaa caasimadan iyo dalkaanba la isaga maharaayo ma la iskaga haraayo in faldambiyeed noocyadii maanta la soo abaabulo kala inay caasimadan ka dhacaan ka foolajignaada shacabka soo raacinina wiilasha yararkaana waxaan leenahay ka foolajignaada bismillaah alxamdulillaah thumma salaatu wassalaam ala rasuulillah sallallahu alayhi wasallam ama bacdu shirkeenan jaraa'id wuxuu ku saabsan yahay dhacdo galabta ka dhacday degmada Wadajir gaar ahaan Labeeraha Soobe runtii sida la socotaanba inda waalaba waxa socday in maaragtay dad hogaamiyaal hore iyo siyaasiyiin oo ku howlanaa inay suurad xumeeyaan ammaanka caasimadda iyagoo ujeedkoodu iyo maqsadkoodu yahay in caasimadan u laabato siday shalay ahayd iyo siday daraad ahayd siday haajirto la yaqaan runtii waa ayaan daro in dad Soomaaliyeed oo hogaamiyaal soo maray inay ku fakarayaan inay hooyooyin iyo shacab dhaxdood inay maaragtay ciidan maleeshiyada iyo wax lamida wax la halmaala inay maaragtay ay ku soo xareeyaan oo caasimadda dhaxdeeda maaragtay qalalaasay ka abuuraan iyo nabadgelyo daro oo wax laga xumaado ayaan daro ah runtii sida la socotiin hameen ka sii horeeyay howlgalladii routiniska ahaa ee 4 sano ee la soo dhaafay howlgalladaas 4 sano la soo dhaafay hameen kastaba wax kamida 95 waaxood caasimadan hameenba wax la baaray ay siyaasadeeyeen runtii taas oo aan helay cadeymo dheeraad dad yoomeel lagu aruurshay oo qawaarijiya oo xogtooda xogo sir doona oo la helay inta howlgal loo qaaday xaafad kamida Daynile lagu soo qabtay iyagoo shabaabka qawaarijiya oo ummadan ay dhibaateeyaan rabay oo qiraal ah oo iyaga ay taagan yihiin oo ay hadda qiranayaan in laga soo dhax qabtana inay gabaad oo ahaayeen leeyihiin runtii dad ayaa kamida waxay ahaayeen dad shacab ah oo loo tagay publicna ummadda Soomaaliyeed uu sheegay runtii sidoo kale waxa la socotiin in ammaanka caasimadda kontaroolada laga sugayo la siyaasadeynaya ammaanka in la siyaasadeeyo maahan caasimadan ammaankeeda iyo dhibka laga soo maray iyo wiilasha u dhintay iyo kuwa u dhaawacmaba idinkuna maadan dhalin baa leenahay wiilal Soomaaliyeed bay ahaayeen dad Soomaaliyeed bay ahaayeen dhalinyaro Soomaaliyeed bay ahaayeen kuwa kamidana qaboori jiraan Allah u naxariisto Ilaahay shahiid bi ayna Allah ka aqbalo kuwa kamidana iyadoo dhaawac oo haraadigoodi joogaan ee amniga ee dalkan dadkan ka shaqeynayaan in la suurad xumeeyo oo ciidanka ammaanka caasimadda sugaya maanta meeshay marayso la ogyahay in la yiraahdo waa burcaday ahaayeen iyo maaragtay ammaan laguma qabtee lacaga looga aruushaa waa ayaan daro waxaan leenahay ka foolajignaada dadka waxa ku howlan iyo arintaas isan in ku galin sidib inta waxa dheer waxa daliil u ah shacabka Soomaaliyeed caasimadda ku nool